qisada maanta aan idin wado way ka duwan tahay kuwii hore. Ninkan aad arkaysaan wuxuu ku soo islaamay hal aayad oo ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka. Sanadii 1998 ayuu aaday masjidka, waxayna ahayd markii ugu horeysay uu masjid aado. Maalinkaas imaamka masjidka waxa uu ka hadlay khudbad cajiib ahayd oo dareenkiisa taabatay. Wuxuuna u tagay imaamka salaada kadib, wuxuuna weydiiyey inuu u sharaxo diinta Islaamka. Sida caadiga ah, imaamka waxa uu bilaabay inuu uga sheekeeyo diinta Islaamka. Wuxuu ku dhahay, waxaad ogaataa Islaamka waxa uu ku dhisan yahay 5 tiir iyo 6 caqiido. Markaasuu ninkii wuxuu ku dhahay, sugbal, waxaan rabaa inaan ogaado inaad haysatid wax caddayn ah, caddaynta in diintaadu tahay waxa aad sheegayso oo ah inay tahay diinta saxda ah. Wuu dhoola caddeeyey imaamkii, wuxuuna ku dhahay, haddaan ku fahmay. Wuxuuna u soo qabtay kitaabka Qur'aanka, wuxuuna u dhiibay ninkii, waana daliilkii ugu horeeyey ee loo dhiibay oo ku saabsanayd diinta Islaamka. Intaa kadib, ninkii ayaa imaamka ku dhahay, ii oggolow inaan aniga akhriyo kitaabka. Haddii ay tahay waxa aad sheegayso, waxa ay caddaynaysaa inay diintan tahay tan saxan. Tani waxay ahayd qadarka hubaalka ah ee aan lahaa, in haddii Ilaah leeyahay diin, ay u noqon lahayd mid cad, una caddaan lahayd qof kastoo diinta saxda ah raadinaya. Wuxuuna Qur'aanka u qaatay gurigiisa, waxayna ahayd fiidnimo Jimco. Wuxuuna bilaabay akhrinta Qur'aanka Kariimka. Isagoo ka sheekeynaya wuxuu dhahay, waxaan xasuustaa akhrinta suuratulfaatixa. Waxaan akhriyey faataxa oo dhan. Mahad oo dhan alla baa leh, allaha caalamka oo idil, naxariista guud iyo naxariista gaar ah baa naxariista. Boqorka maalinta qiyaamaha, adiga keliya ayaan ku caabudaynaa, adiga keliya ayaan gargaar kaa dalbanaynaa. Nagu hanuuni jidka toosan ee kuwa ku manaysatay nimcadaada, aanan ahayn jidka kuwa caradaada ku dhacday iyo kuwa baadiyooway. Isla markii aan akhriyey in baryada Ciise ee uu xirtiisa ku baray kitaabka quduska ah ayaa maskaxdeyda ku soo dhacday, ayuu yidhi ninkii. Kadibna waxaan u gediyey kitaabka suuratulbaqarah si aan u akhriyo. Aayadda 1 ee alif laam miim wax macno ah iima yeelan, laakiin aayadda 2 waa tan nolosheeda oo dhan beddeshay. Aayaddan waa sababta aan u go'aansaday inaan si dhab ah u baaro diinta Islaamka. Waa sababta aan u go'aansaday inaan sii wado akhrinta Qur'aanka. Waxaan dhihi karaa ama laga yaabaa inay sabab u tahay inaan Muslim ahay maanta. Aayadda 2 ee suuratulbaqarah ee kitaabka Qur'aanka. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina.